nasiib darraa ninka wax tilmaamaya ama wax dhaleecaynaya in horta isagu isaxaa qurux badan waxaanada reer Soomaaliya oo sheegana anagu dhaliisha jirto uma sheeganay cayta ku jiro xisbiga wadani wuu fashilmay wuxuu ku fashilmay labadiisii koowaad oo ku soo saarayay musharaxiintiisii u tartamay doorasho soo socota ee madaxweyne ku saaray si ugu fashilmay ni sheegay qarankani wuxuu sameeyay shuruuc sameeyay muddadana wuxuu awooday xukuumadda joognay markii hore golayaasha qaranku nin walba wixiisa xeerkiisa tirada golihiisa dhexe tirada golihiisa fuuta jeebkiisa gaaysanaya inta lama ogeyn maanta gudoomiyaha wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada xeerkuu sameeyey wuxuu qeexayaa in golo kasta ama xisbi kasta ama urur kasta oo abuurmaaye wixii uu samaysto ee sharciga tira golaha dhexe tira golaha fuul in la geeyo hay'adaha sharcigu ayuu furay dhammaan saddexda xisbi qarada soo baxay tirada golahooda dhexe iyo tirada golahooda fulinta iyo hoggaanadooda maaragtay kala sarreeya wuxuu yaallaa hay'adaha sharciga oo ka kow tahay guddiga diiwaangelinta oo laba ku tahay xeerlaanta oo saddex ku tahay maxkamadda sare oo afartiina komishinka doorashooyinka qaranka wuxuu ku fashilmay in tiradii u diiwaangashanayd ee sharciga ahayd oo aad u koobnayd oo 250 iyo magaalada u sheegaya waxaa lagu maamulaa cadeecad ku maamulaa farcu asalka waddanka xisbi hadduu tiro asal u samaysto wuxuu kordhiyaa wuxuu noqonayaa wax kooban oon asalkii dhaafin waxaynu ognahay 250 inay ku dhuntareen 500 oo sharci ahayd ummaddu inay fahamto weeyaan halkuu ka qalocsanay cadaaladda ka qalociyo waxa weeyaan hore ay jirin oo sharciyaysnayn oo nidaamkii sharci loo marin ayay wax ku doorteen taasina waa ta keentay cadaalad darrada ninka maanta golihiisii maamuli kari waayey wuxuu qaran maamulkiisa kaga sugay saaxiibadeeda kulmee ka carooday waxay idhaahdeen rag baa loo afduuba xisbiga annaga xisbiga looma afduubine xisbiga kulmiye golihii dhexay sameeyeen u kalsoonaa waayeen inay doorasho ka qayb tahay waxa lagu dareero ma jiro golihii dhexe ee 2012 oo kulmiye geeyaha hay'adaha sharciga waxa lagu daray maalintii 2015 Noofambar doorashada dhacaysay qof laguma dilin wali sharciyeysnaa yaa lagu kala baxo lagu doortay kaasay ka carareen afduubkii ay ku sheegeen kulmiye waxay maanta ka sameeyeen xisbiga u tageen iyo maanta ka sameeyeen inay walaasha intahaayto wala dhaxo jirin sharci ahayn inay nina ku xumeeyaan ku dulmaan nina ku soo saaraan ninku maaha golada yaqaano oo sharciyeysa haddii laga badiyo ee maaha laakiinse in lagu dilo golaha laysku ogeyn taasaa sharci darraa marka waxa weeyaan waxaan leeyahay saaxiibadaya